waxaa runtii uu ka duwan yahay kuwa badan oo waxaan micnaba lahayn tareenka uga dhacay oo deedna runtii dadkii ay hogaaminayeen ku hor fashilmay ku hor kufay oo dhibaata ka jirto oo idinku ogtihiin dhibaatan way ka jirto waa la iskhilaafi karaa aragtiyaha waa lagu kala duwanaan karaa laakiin qofku inuu haawiyad ka tuuro dadka asaguna iska tuuro runtii waa ayaan daro marka cabdilcasiis waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay runtii kaalinta aad ka ciyaarto annagu wuxuu ka tirsan yahay golo la yidhaahdo NCC oo dalka siyaasaddiisa laga hago lagu dhiraan dhiriyo lagu bisleeyo lagu qaato qaraaro adag oo mararka qaarkood fooda la isku geliyo oon sahlanayn in la isku raaco oo aad u adag oo aad aragteen mararka qaarkood madaxda qaarkood inay ka faniinto meesha kaba baxdaba ka cararto adkaysan weydo dulqaadkeed yeelan weydo kartideed yeelan weydo bisaylkeed yeelan weydo cabdilcasiis waxaa markhaati laga wada yahay oo inta joogtoo dhan ay ka tahay mararka ay bahashu adkaato odayga loo laabto ee tanaasulaadka keena ee ka odayeeya ee dadka isku soo jiijiida magaaladan keliya isbeddelka ka dhacay ayaa ku filan marka la eego qayb walba nambaradii oo dee cadna waynu fiirsanay haddii ay tahay dhinaca maaliyadda iyo sida ay u kobcay miisaaniyaddu ama bajetku uu u kordhay bajetka kordhacay wuxuu ku tusinayaa sida ay adeegyadu u bateen ilen waxaan adeegyaa lagu samaynayaa ama horumarku uu batay ayay ku tusinaysaa amniga sidoo kale waa u jeednaa wanaagga ka jira iyo sida ciidanka la dhisay iyo in la qalabeeyey qaybahaas kala duwan oo dhan oo amni leh oo adeeg bulsho leh waxbarashadii iyo caafimaadkii dhismayaashii laamiyada iyo buundooyinka iyo dhinaca governancegii oo cadaaladii iyo siyaasaddii iyo wixii la xiriiray oo dhan marka aad iyo aad baan runtii u baarakaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay horumarka jira cabdilcasiis madaxweyne cabdilcasiis anigu dadka aad u ammaana ma ihi laakiin haddii lay dhihi lahaa muxuu ku fiican yahay qofka ammaanta badan ammaan buu mudan yahay laakiin anaan u samaysnayn inaan dadka ammaano laakiin haddii la dhaho muxuu ku sifaysan yahay oo ugu fiican hal iyo labo ani kolley intaan aan ka garanayo waa laba shay ayaan ku soo aruurin karaa oo midna heer qaran yahay midna heer state yahay heerka state waxaa ugu fiican soomaalida waxay dhahaan qofki ilaahay dunyo la doono dadkiisu waa la siiyaa dadkaa sameeya horumarka iyo dhaqaalaha iyo adeega iyo xadaarada iskama samaysmaana dad baa sameeya si loo helo kuwaas waa in dad la helo anigu waxaan arkay cabdilcasiis anigoon aqoonin runtii markii aan fiiriyo south west iyo maamulka markuu yimid xilliyada qaarkood xataa annagoon isku siyaasad ahayn laakiin macruuf dadkoo dhan way yaqaanaan waxaan weligay aniga anoon aqoonin aan oran jiray cabdilcasiis south west wuxuu ku sameeyey transformation siyaasadeed wuxuu empower gareeyey dhalinyaro aqoon-yahano ah hadday yihiin xildhibaano iyo hadday yihiin wasiiraba waxa ugu fiican oo bulsho lagu bedelo ama lagu horumariyo waa inaad dadkeeda dhalinyarada ah
aqoonta leh aad keento meel ay dadkooda uga adeegi karaan oo aad empower garayso fursad siisa waay marka Southwest waxyaabaha bedelay aniga aan aaminsanahay inay horumarka keeneen oo hadda ay in fara badan dawlad goboleedyada kale ay ku dhaafeen si waliba degdega waxa aan aaminsanahay inay majaraha u hayaan hawlaha adeega wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha kala duwan dhalinyaro yaryar oo aqoon leh oo kulligood wada jaamacada ka soo baxay dalka iyo dibadda oo runtii fayow oo aad iyo aad u qiimo badan oo aad u ammaanayo runtii in badan aan ka aqaano in ay uu keenay Cabdilcasiis oo awood u siiyay inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan arrintaasi arrin fudud ma aha waa qaraar adag iyo decision adag inaad siyaasiyiin waaweyn hayga raalli ahaadaan dadkii waaweynaaye oo weligood soo joogay intaad dhaaftood baas marayso aad dhalinyaro yaryar gacmaha soo qabato oo positionska aad geyso wax fudud ma aha eedda iyo waxyaabaha la socda waa iska garanaynaa laakiin decisionkaas aniga madaxweynaha oo ku ammaanaa runtii waana meeshaan isleeyahay Southwest wuxuu kaga bedelay wax aad u weyn uu kaga bedelay dadka community development-ka iyo siday u koraan bulshooyinku iyo sida bani aadamka loo bedelo dadka ama wax ka bartay ama wax ka baray ama study ku sameeyayna dib ha u fiiriyaan way arkayaan taa marka waan ku ammaanayaa waa heer state oo aan isleeyahay halkaasuu ka soo galay development-ka ama horumarka hadda caawad naga sheekeynayay meeshuu ka bilaabay meeshaas ahayd hadduuna ka bilaabi lahayn way isku meeraysan lahayd taado qodobka labaad aan ku ammaanaya waxaa waaye waa heer state annagu wuxuu ka tirsan yahay golo la yidhaahdo NCC oo dalka siyaasaddiisa laga hago lagu dhiraandhiriyo lagu bisleeyo lagu qaato qaraaro adag oo mararka qaarkood fooda la isku geliyo oon sahlanayn in la isku raaco oo aad u adag oo aad aragteen mararka qaarkood madaxda qaarkood inay ka faniinto meesha kaba baxdaba ka cararto adkaysan weydo dulqaadkeed yeelan weydo kartideed yeelan weydo bisaylkeed yeelan weydo Cabdilcasiis waxaa markhaati laga wada yahay oo inta joogto dhan ay ka tahay mararka ay bahasho adkaato odayga loo laabto ee tanaasulaadka keena ee ka odayeeya ee dadka isku soo jiijiida ee mar walba sababta u noqda in lagu guulaysto in qaraaradaas la isku raaco oo si national ah ama dadku ay u wada dhan yihiin marka dambe ay ku dhammaadaan runtii asal buu yahay marka waa mas-uul runtii aan anigu ka dheehday inuu yahay oday Soomaaliyeed oo ay ku dheer tahay runtii dalkan in uu ka baxo dhibaatooyinka uu muddada dheer ku soo jiray una jihaysto jidka ama tubta dawladnimada iyo horumarka marka taasna runtii waa mid aan anigu ku ogahay aad iyo aad baan ugu ammaanaya waxaa runtii uu ka duwan yahay kuwa badan oo waxaan micnaba lahayn tareenka uga dhacay oo deedna runtii dadkii ay hogaaminayeen ku hor fashilmay ku hor kufay oo dhibaata ka jirto oo idinku ogtiin dhibaatan way ka jirto waa la iskhilaafi karaa aragtiyaha waa lagu kala duwanaan karaa laakiin qofku inuu haawiyad ka tuuro dadka asaguna iska tuuro runtii waa ayaan daro marka Cabdilcasiis waxaan leeyahay waad ku mahadsan tahay runtii kaalinta aad ka ciyaarto arrinta isukeenka iyo isku wadka iyo odayeynta heer qaran ma aha heer keliya inuu Cabdilcasiis uu koonfur galbeed keliya ka shaqeeyee arrinta dawlad dhiska Soomaaliya iyo jihaynta dalka iyo isukeenka ummadda Soomaaliyeed ayuu wuxuu ku leeyahay kaalin
lama ilaawaana oo runtii mudan in lagu ammaano aad buu noogu mahadsan yahay intaa kadib waxaan kusoo koobayaa dalkeennu maanta wuxuu marayaa marxalad kala guura ah dalkeennu wuu guurayaa marka marxalad oo transitions ayuu marayaa oo kala duwan oo la dhihi karo waa marxalad adag dhinac marka laga fiiriyo laakiin haddana ku tusinaysa inuu gaadhay meel fog oo u baahan keliya hinqasho yar in waxoogaa gawsaha la isku qabto oo aan laga boodin dee tareenka sida dadka qaarkood uga boodeen oo si berri ammaanka loo gaadho leanna wax yar baan u jirnaa in aynu runtii dalkeennu meeshii u baahnaa gaadhno wax yar baan u jirnaa waxaan ku jirnaa isbeddel ama geedi dhinaca amniga ah waxaan runtii aynu dagaal adag kula jirnaa khawaarijta oo aad ogtihiin in meelo badan laga sifeeyey waxaana idinku filanuun sida aynu caawa nabadgelyada ugu fadhino halkan baydhabo sida ay muqdisho noqotay oo aad ogtihiin nabadgelyada iyo wanaagga ka socda iyo dee siday ahaan jireen isu miisaamo 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor marka waddanku wuxuu ku jiraa marka dagaal adag oo aan kula jirno khawaarijta oo aynu ka sii adkaanayno oo aynu u baahannahay inaynu waxoogaa yarsaan sheegay aynu gawsaha isku qabanno in adkaysano